السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale channelkeeni ahaa toosinta garaadka iyo barashada xikmadda iyo walaashiinii ismahaan khaliif cali oo mar kale idiin sidaa wax tayo leh oo qalbada u roon wax tayo leh oo qalbada u roon balanteenuna waa wanaag iyo xumaanta oo la reebaa maasha Allah waa balanday waxa wanaagsan oo lagu balamo adduunyo aakhiro meel fiican lagu maraa dadka dhan wanaag oo wada jecelnahay maasha Allah halkana wax wanaagsan ayaa idinkaga sidaa waxaan ku leeyahay cashirka qiimaha badan walaasha ismahaan khaliif ku sidaa inta aan hore u galin subscribe ka dheh like and share kana saa maanta ismahaan khaliif wuxuu ku sidaa horumar nafsadaada oo horumarisaa adduunyo aakhiro nafsadaada oo horumarisaa adduunyo aakhiro nafsadaada oo horumarisaa adduunyo aakhiro iyo maxaa dib u dhaca nagu riday Soomaali hadaan ahay maxaa dib u dhaca nagu riday okay maanta adduunyada aan maanta joogna ayaan kaga sheekeynaa wax yar maanta adduunyo waxa la joogaa looma baahna dhaqtar looma baahna injineer looma baahna wax walba wallahi oo billaah inaan been idin sheegin subhanallah cilmi oo dhan waa la isku soo aruuriyay halkaas la geliyay aaladaas internetka ayaa la wada geliyay buugaag ayaa lagu wada qoray meel kasta ayaa la dhigay okay waa balaaranta wax balaaran waa wax halkaan 10 daqiiqo iyo 50 saacadood ama 100 saacadood aan kaga bixi karo ma cilmiga maanta adduunka yaala inaan ka qaadanaa meel qalad aan ka qaadanaa oo waqtigeeni qasaarina waa calool xumo aad iyo aad ayaa calool xumo tahay waqtigeeni inaan qasaarina aad iyo aad ayaa calool xumo tahay waxaa marka maanta aan cashir nooga dhigay horumar sideen ku gaarnaa qofka nafsadiisa horumar inuu ku gaaro walaal iga raali ahoo iyo abaaye iyo aboowe waxa idin leeyahay horumar la gaaro hanti maaha haddaan u malaysaan horumar inaa gaarto inay tahay hanti iyo guryo inaa heshto horumar maaha aniga horumar uma haysto inaa milyaneer noqotid horumar maaha kaliya wax ka weynaa jiro inaa heshid guryo fara badan iyo hantiila noqotid horumar maaha ha qaldamin ismahaan khaliifna channelkayga uma furin bulshada inaa wax qalad uga sheego ogaada horumar sida saxda ah waxa waaye inuu qofka binu aadanka ahaada qof binu aadan ah oo naxariis leh oo akhlaaq leh oo ilaahay ku xiran ilaahay wuxuu u soo dejiyay alkitaab alquraan wa sunnatu maxamed calayhi salaatu wasalaam subhanallah oo xikmad ku qaadaa qofkaas ayaa guul adduun iyo liibaan aakhira leh hadduu shilin haysan xataa ma qatano marka horumarka ayaan ku soconaynaa qofka muslimka waxa laga rabaa asagoo kitaabka quraanka iyo sunnada nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam si dhab u qaatay oo laqay oo korkiisa galiyay dhiigiisa galiyay waxa laga rabaa inuu ku dadaalaa inuu dulmiga korkiisa ka ilaaliyo inuusan dadka ilaahay ku mashquulin odan noqon judgmental qof dadka inta ku mashquulo xataa ilaa dadka hadalkooda iyo noocay u hadlaayeen sida yeelay inaan ku mashquulno ama xasadno ama ka daba wareegno ama abalugoynaa ama hakrana ama gadaashooda ka xamanaa qofka muslimka horumar markuu rabo inuu gaaro wuxuu haystaa intaas koow kitaab alquraan wa sunnatu maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu si dhab u qaatay waa qof binu aadan shakhsi jira oo madax banaan adoon ahayn inaan noqoto ilmahaagana ku tarbiyay hooyo iyo aabe ilmihiina ku tarbiyay inay yihiin shakhsiyaal madax banaan ilaahay abuurtay adduunkan keenay ana adoome ahayn adigana ha adoonsan ilmahaaga ilmahaaga haddaa adoonsatid dadka kalena way adoonsanayaan ogaada markasta waxaa ogaataan haddaa ilmahaaga adi adoonsatid waxaa guriga kaga dhigtid uu banaanka ku noqonayaan hadhowti haddaa abuse garaysid ilmahaaga waxaan ku samaysid banaanka marka lagu sameeyo hooyo buu igu samayn jirtuu leeyahay haddaa dhahdo waxaan ku dhaha sameey hadhowti waxaa bartay in dadka ay dhahaan waxay dhahaanba uu sameeyo ilmaha waxaa aniga raba sameey ilmaha laguma dhaho waxaa la dhahaa waxa wanaagsan waa lagu tarbiyeeyaa markuu yar yahay 5 sano 6 sano 7 sano markuu soo gaaro waxaa la dhahaa haye waa ku tarbiyeeyaan wax xun muxuu ahaa waxaas waxa fiican muxuu ahaa waxaas sidaa raba sameey ma jirto ilaahay ayaa sidoo rabo oo sameeyana dhahay sameyn waa ka soo degnay qofkii wuxuu noqday qof nadiif ah naxariis badan daacad ah
ilmaha ku tarbiyeynaysa ugu adiga nafsadaada isku tarbiye kadib ilmahaaga sii waa dhaxal wanaagsan dhaxalka ugu wanaagsan kaas waa dhaxalka ugu wanaagsan ma hanti guryo waxaas ma waxba ma waxaas daahaysid oo waxaan haysan waxba ma tiid waad turaysaa isdilaysaa dabaqyadaas ka soo tuuraysaa ogaada hanti ilaahay ka baryina hanti kaliya waxa ilaahay ka baridaan inuu nagu risaaqo xikmad inuu nagu risaaqo dad caqiidada dhabta ee islaamka ay qaata inaan noqono walaalayaal si dhab ayaa idinkula hadlaa waa walaashiin ismahaan khaliif oo idinkula balantay wanaaga waxaan ku leeyahay walaalkay qaaliga how iyo walaashay qaaliga how halkaan waxaan kaaga soo gudbinayaa dhiirigelintaas ka imaanayso qalbad nadiif ah oo aad ku jecel ilaahay ayaan ka rajaynaa qalbadeeda inuu sii nadiifiyo waxaan qiyaasaa inay nadiif tahay laakiin waxaan rajaynayaa in ilaahay unbaa og qiyaastayda waxa ma taraysa ilaahay hana wada wanaajiyo okay waxaan kugu soconayaa horumarka nafsadaada marka qofkaas dhan soo noqotid waa weyn tahay maanta hadda ka soo qaad qof weynaa tahay wixii kugu dhacay wuu dhacay qaado baayo wixii kugu dhacay wuu dhacay wixii kugu dhacay wuu dhacay past wixii pastiga ahaa hadda iyo ku saameyn xataa inaad soo xasuusatid ha ka murugin waqti ha ku qasaarin wixii kugu dhacay ka tag horumarka jidkiisa ku jirnaa moogta horumarka jidkiisa ku jirta ismahaan khaliif jidad isla marayna ogaada waa soo soconaa waxaan ku dhahay qof binu aadan ah oo naxariis badan akhlaaq leh oo toosan daacad nadiif xiqti xaasidnimo xumaan waxsta ka soo tagay oo alkitaab alquraan wa sunnatu maxamed calayhi salaatu wasalaam si dhab u laqay ya ilaan inaad laqdid kitaabka quraanka iyo sunnadii inay waxba ka oo iska barbaratid oodan ku dhaqmin binu aadan ma noqonaysa binu aadan xuna noqonaysa hadaadan ku dhaqmin ma fahanteen marka qofku waa inuu marka hore binu aadanimada tayada binu aadanka inuu yeeshaa qofka binu aadanka way kala tayo sarayaan dadka way kala tayo sarayaan kala barta dadka isku tayo ma ah dadka way kala tayo sarayaan marka yaa hadalka idinku badin marka qof tayo leh markaa noqotid oo ilaahigiisa ku xiran oo binu aadanimadii oo qalbadiisa nooleeyo caqiidadiisa nooleeyo wax dhan nooleeyo hore u socdo maasha Allah dadaalo muxuu sameeynaa uu ku soo socdo intaas dhan uu ku soo socdo uu soo dadaalo oo soo waxyaabaha macnaha lahayn ka haray uu soo socday ya uu noqdo qof jiro aan la maamulin oo shakhsi banaan waalidkana laga rabo ilmahooda inay ku tarbiyayaan inaan qofka qof kale u abuse gareyn karin abuse idink waxa u haysatiin abuse wax weyn u haysatiin abuse everywhere there is abuse in qof hadaa dhahday xataa cuntadan qasab hadda cunugaaga hadaa dhahday waa abuse garaysan cunugaaga wuxuu sarbeeda abuse-ka ilmaha laga daayo waa abuse qasabka iyo caburiska ma fiicno waxaa leedahay waa kala dooransiinaysa aniga sidaan ila fiicnaa leedahay adigana see kula fiicansaan haddii kale banaanka ula baxaaya qalbadana way jabtay maskaxdana ciida kaga shubtay cunuga ogaada marka qofkii oo muslimka ahaa markuu uu intaas kusoo dadaalo uuna soo socdo uu halahaas idin soo sheego uu soo sameeyo maxaa laga rabaa marka wixii kugu dhacay uu dhacay paastigaaga ka tagaan idin dhah hadda aad joogtaa hadda marka maxaa sameynaa qof weyn aad tahay 30 jir aad tahay 40 jir aad tahay 50 jir aad tahay paastigaaga ku noolaad wixii kugu dhacay maalin walba emotion ahal ina xanuunsatay la xanuunsan jirtay la ka fikir jirtay maxaa kan igu dhacay waagaas kan igu dhacay sheeka xataa ina ka shakeysid ma aha qiimo male wax kugu dhacay uu dhacay hadda ka shakeysid jirkaaga maaragtay dhicaamadaada uu saameynaya markasta maalintaas u noqonaysa waqtigaas ka khasaaranaysa wax weyn maaha wuxuu kugu dhacay wax weyn maaha adduunyada dhanba imtixaan loo yimaado wax alaala wax kugu dhacay ku mashquulin qiimo badan oo qiimaha adduunka uu ilaahay ku keenay qiimuhu ku yeelay ha iska khasaarin waa walaasha ismaan khaliif oo ku dhiirigelinaysa mar labaad ka kac meesha ka kac oo istaag ciidda iska jaaf wixii hore tagay maanta waaye maanta ka bilaabo maanta joogtaa marka maanta maxaa sameynaysaa marka maanta waxaa sameynaysaa accept ada isdhigaysa sidaa taha acceptance isku sameynaysa waa is ogolaanaysa ogolaansho waxaa laga yaabaa dhaliilo fara badan nafsadaada adiga u haysid inay ku xakameynayaan ada is xakameynaysa fiiriya ada is celinaysa maanta xarka isku haysaa waxaa leedahay hore u soconaa haddana waa is haysaa maxaa isku haysaa maanta dhan ama noloshaadii hore wixii kugu soo dhacay yaraantii idib ku soo gaaraa maalin kasta madaxaaga ku jiro ama micna la-aan dada ku mashquulshaa judgmental la tahay dadka ka shaqeysaa dadka ilaahay hala daayo qof tayo la noqo oo dadka ilaahay nabadgeliyaa asagana hore u socdaa qiimo badanoo adduunyada nolosha inta la noolaanayaba waa wax yar kii 100 sano jira haddii la weydiiyo wuxuu yiri wax badan ma nooleed may waxba ma aanu yiri 100 sano waa degdeg
maqla marka idinko igraale is ogolaasho isku ogolow xaaladda ilaahay uu kugu sugnaysiiyo siduu ilaahay ku abuuray ku farax maskaxdaada iyo aqligaaga inuu buuxo dib tahay ogow caafimaada qabtaa maskaxa qabtaa maskaxdaada way banaanta waa empty maskaxdeena waxa ogaataa qof qiimo leh inaad tahay da'daada jir wax kasta inaad baran kartid wax kastana qabsan kartid meel kastana tegi kartid awoodaada dadna ha isku xiran dadka ilaahay hayaa la isku xiran maalinta qaan gaartid qof shakhsi madax banaan oo dadka ku xirneen oo dhahayn aniga muxuu ahaa qofkaana rabaa wax inuu ii sameeyo aniga qofkaana rabaa wax inuu ii sameeyo aniga qofkaana rabaa inuu ii sameeyo qofkaana ay rabaa inuu wax ii sameeyo no dadka inaa wax ka sugti maaha oodan eedeyn dadka eedeeyaa horumar ma gaaraan dadka eedeey maalin hebel ay kan iima sameynin maalin hebel mala ii imaanin maalin hebel kana igu dhacay maalin hebel adiga maxaa tahay adiga soo ilaahay kuma abuurin soo adoon daciifa ma tiid dadka siyaa maamulo ilaaha maamulo adiga sida la rabo ma lagaa helay adigaba sida la rabo ma lagaa helay ha isu maleyn inaad wada fiican tahay abaayo abow qof wada fiican ma jirto anaga dhan ma wada wanaagsanin laakiin adiga ooba sida la rabo lagaa helin sida dadku eedeysaa anaga maanta bulshadeena marka waxa horumarka noo diiday aadin sheego horumarka waxa noo diiday waa is eedeynta eed farada badan macna la'aanta ha laga hado eed fara badan iyo colaad fara badan la abuuray oo macna la'aane dacwo eray buuq waa la yiri waa laga yaale waa laga dhacay intee tagtay buuray noqotay colaadii abuurtay buuray noqotay waa abuurtay miraha colaada waa abuurtay miraha nabadana waa la abuuraa miraha nabada dadaa abuurtay reer galbeed maanta miraha nabada ay abuurteen anagana waxaa abuuranay miraha colaada marka qaran ahaan iyo qoys ahaanba waa u dunnay miro colaad aan abuuranay ayaana goranaynaa sidee marka cashirkan cashir balaaran waa miraha colaada sidee lagu damiyaa in cashir gaar ah ka sameeyo waa taas iyo eedeyntaas iyo arrin balaaran waa waxa ku socda qofka shakhsiga bini'aadamka horumarkiisa aniga ismaana intii aqliga iyo maskaxdiisa ayaa walaashii qaaliye iyo walaalkii qaaliye ku sheegay waxa laga rabaa marka adiga is ogolaatay suu ilaahay ku abuuray iyo sidaa tahay ma ogo maskaxdaada inay banaan tahay oo wax kastana baran kartid oo dadaali kartid oo horumar gaari kartid marka kac hadda ka kac meesha kac oo istaag oo qabso waxa qabsan lahayd eedeynta ka bax dacwada ka bax colaada ka bax xinka ka bax xasinimada ka bax waa istaagaysaa maskaxdaada ka nadiifi inaad nin rag tahay oo jikada gali karin oo in cunto lagu kariyo tahay gacmaha isa saaratid dulli waa taas waa isdullaysay adiga laga rabaa xoogaaga inaad sadaqa ka bixisid oo hooyada iyo aabaha maadaama markaa yareed ku soo sameyn jiray u sameeyay maadaama maanta 15 jir satay wiili gabarba 15 jir haday gaaraanbo waa mas'uul waa qaangaar waa in la baraa mas'uulkooda inay ka soo baxaan waa soo socotay halaas ana soo sameysatay waa dadaalaysaa waxa noqonaysaa qof wax baratay oo maskaxdiisa ka socdo oo dadaalayo oo horumarka iyo jidka cad wax baranayo buugaagta akhrisanayo oo cilmi baranayo hadduu cilmi bartanayo sii bartayo wuxuu ka doortay cilmiga adduunka maanta ciidu ka batay waxaan rajeynaynaa ilaahay inuu na soo hanuuniyaa oo xaqa nagu sugaa marka qof daharsan oo nadiif marka intaas soo heshid ya ono markaas kadib lacag hada helaysid iyo jidkaas lacagta u mara laakiin hadaa dhahdid intaas anoo hiisoo sameynin uu ku jiro halaasna saas kaa aan waxaan rabaa lacag bis inaad daba ordo ama aan horumar gaaro oo cilmi adduun iyo aakhiro barto oo macnaha si qalad wax ku raadisaa waa qalad marka maskaxdaada waa nadiifinaysaa Somali culture wax la dhahaa jiro Somali culture iyo Somali mentality ay jirto wax wanaagsan waan qabnaa miisaan waxa wanaagsan iyo waxa xunba oo Somali culture-ka oo dhaqanmadeena dhaqanka Soomaaliga waxyaabaha qaldan waa inaan miisaanta dhaqankan ma fiican yahay dhaqankaanse ma xun yahay ha ku socon waxa dhaxal awow ahaa iyo aabayaashana ka dhaxan inaa ku socono ma wixii xumaa waa la cirib tiraa wixii fiicanna waa la haystaa marka anaga hadda maanta inta imaanay galbeed imaanay anaga dadka hadda qurbahan meeshan joogo maaha inaa waxa wanaagsan wax xun bis ka qaadana wax fiican ay leeyihiin ayaga wax badan oo fiican ay leeyihiin waxyaaba badan oo fiican ay leeyihiin waxa kamid ah inay ku nabad gelinayaan
inaysan walaal wax ma isiinin iyo ma yaqaanaan ma lay caawinin iyo dhaqamadaas ma yaqaanaan nin walba wuxuu isku haystaa tiisa inuu soo saarto maadaama uu qaanqaarin waxaa arkaysaa qof yar oo 18 jira oo meeshuu deganaa waalidkiisa xataa intuu ka guro meel kala taga tabcaa keligiis isu soo saaraya arkaysaa ilaa waa shaqsi binu aadan xor ah ilaaha adduunka sabab u keenay caqiidada dadkana looma dirsan nin walba caqiidadiisa si dadka gaala iyo waxaas dadka aniga ma jecli inaan dhaho nin walba ilaaha xisaabsanaayo na looma dirsan dadka diimadooda iyo anaga sida in loo xushmeeyo aan rabno ayaan dadka u xushmeynaynaa marka waxaa laga rabaa qofka muslimka ah qof nadiife oo daacade oo dadka xushmeeya marka walaashay qaaliga iyo walaalkay qaaligaho casharadan horumarka wax halkan ku dhow ma aha waana idinkugu socon doonaa balanteenu waa wanaag iyo xumaantoo la reebo waa walaashiin ismaha khaliif oo idin leh subscribe like and share waa idinkugu socon doonaa cashirka insha allah assalaamu calaykum